جعلان مع اسمه waxay oo jid ku sameeyeen wixii la soo qabanayo oo dhan waxaa maqli jiray maroodiga ayaa wuxuu sameeyaa oo jid wax la yidhaahdo oo jidkii maanta sameeyeen ilaahay mahada ka gaadho runtii mahadcelin waxay ka soo bilaabanaysaa dadkii ka shaqaysay nabadda halkaan maanta ilaahay suurta geliyey oo intaas oo ummada oo kala duwan oo qiimahaas leh ay isugu yimaadeen dadkii ka shaqaysay ayaa mahaddeeda iska leh allaha weyn oo waaxida ka sokow waxaan uga mahadcelinaynaa dadkii ka shaqaysa nabadda tan awoon baan uga mahadcelinaynaa xaqiiqdii anagu waxaan u soo joogay muddo badan gobolka mudug nabadeyntiisa iyo xaasooyinkiisa in badan baan soo joogay ma arag runtii xaflad intaan la-eg iyo dad intaas qiimihiisu meel yahay oo bulshada qaybaheeda kala duwana oo geed noocaan oo kale a isugu yimid oo nabad sidaa u maamuusahaya xaqiiqdii maana soo joogin midba ka dambayso waxaa imaanaya ku dadasho iyo masayg siday tii kale uga hormarto waxaan odhan karaa gabashii bandiiraley dukaan baa la furay la camiray laakiin qolkii dambe oo baqaadka kaydka ah wuu marnaa halka godoga baa buuxisay kaydkii dambe marka dukaankii iyo baqaadkiisii oo isku buuxsamay ayaa halkaan ay ka suura gashay maalinba maalinta ka dambaysa waa ganacsi oo kale waxbaa ku darsanaya waxaan rajaynayaa gabasha saddexaad oo amba beerahan isugu soo laabteen amba beeraha kaloo gobolka naladiga sida midda bariga hadda nooga qalqaabsan oo kale inay kasii siyaadiso oo hadda markii la arkaba ay noqonayso dadkii wax cusub inay ku noqonayso walaalayaal dhammaan beesha kanade iyo beesha maasimage oo maanta meesha noo dhigtay gabasha sida ay nagu soo dhaweeyeen oo maanta ugu dambayso kulli oo mahadcelinaya marka nabaddu ma soo bilaaban haddeer mana ku dhammaanaysa haddeer insha allahu annaga waxaan soo jeedinayaa fursadda maanta aan haysano in si degdega guddiyadaba hawsha ugu galaan culamaauddiinku hogaaminaya hogaanka u dhiftaan intii kaabaysana kaabto la soo afjaro loona rabo oo soo socota intaasaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo waxaan rabaa in loo hambaliyeeyo loona duceeyo culumadii iyo odayaashii dhowr iyo 10 sano nabaddaa soo waday oo sheekh mursal iyo sheekh mahdi ay madaxda u yihiin iyo khayr adag hadda haleeyayo cabdikariin sheekh axmed iyo ragga magacyada leh oo hawshaas ku soo xafaaday muddo badanna soo waday waxaan rabaa raggaas in loo hambaliyeeyo in la ogaado maqaamka ay ku leeyihiin mudug in la ogaado in loo xamdiyo ilaahay soo gaarsiiya maanta meesha ay marayso oo siyaasiyiintii iyo waxgaradkii iyo cid walba ay isugu timi maanta oo madashaan weyn ee halka ay marayso waxaan kaloo codsanayaa in arrinta halkaa maraysa meeshii la rabay in bay maraysaa aysan dib u laaban ilaahay inuu maanta sidii inoo kasiiseeyey inay inoo ahaato inuu tafaas la qabano aysan meel ka dheelin inaynu ku dadaalno inaysan ka xumaan dib ka xumaan inaynu ku dadaalno ilaahayna aynu la kaashino marka anigu waxaan rabaa hadda casal weeye hadal badanna ma rabo inaan si